السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركنا أفراد waxaynu ku baran doonaa sida insert loogu sameeyo data oo data loo geliyo tableska uu ka kooban yihiin database-kaaga isla markaana loogu kaydiyo aynu baran doonaa in SQL Server Management Studio 2014. haddaba sida aynu uga sii ogaano in yar hordhaa waxaa jira syntax ah oo hab qoraaleedka insertigu uu dhacayo marka tables wax la gelinayo. syntax waxa uu noqonayaa insert baad qoraysaa into kadibna table name-kii baad qoraysaa oo ah table-ka aad doonayso inaad wax geliso magaciisa aad qoraysaa. kadib waxaad qori kartaa values kadibna value-yada aad halkan gelinaysaa adigoo dhexaysiinaysa semicolon ilaa masha Allah ilaa inta ay yihiin. mar labaad baa jirta oo kani waxa uu ku noqonayaa inaad specific columns aad wax geliso qaar ka boodo qaar wax geliso qaarna aad iska dhaafto. sayta wax xadidaysaa marka ma ka dhigan tahay insert baad leedahay into table name magacii table-kaad wax gelinaysaa halkan ku qoraysaa kadibna column-yada aad doonayso inaad wax geliso halkan gelinaysaa value-yadii aad ugu talagashay in la geliyo halkan ayaad ku qoraysaa. bilmatalan oo kale array baad qortay column-kani uu leeyahay column-kani buu gelayaa meel kala qaban maayo. column-ka ku sheegtay eraygiisa halkan buu soo gelayaa kana halkan buu soo gelayaa. waxaad gelin kartaa column-ka u horeeya iyo column-ka u dambeeya oo kala table-kaaga labadaas oo kale waxaad gelin karaysaa inta kale oo waad ka boodi kartaa. waa specifics waxyaabo gaar ah ayaad gelin karaysaa marka oo column gaar ah gelinaysaa inta kale waad iska tagi kartaa. sida ay tahay marka column-madan oo kale laba column baan halkan ku sheegnay bilmatalan Soma table-kan wuxuu ka kooban yahay 6 column ka soo qaad 6da column ee uu ka kooban yahay 6diiba labadan column oo kale ayuu wax laga gelinayaa inta haddaba aynu isla eegno taas oo aynu manually iyo code ku samayn doono casharkeena. halkan ayaynu tegaynaa database-keena expand laanay waxaanu soo furaynaa table-ladeennii mid ka mid ah. imika table-keeni harkiisa ayaa inoo yaala marka ugu horeysa manually ayaynu data ku gelinaynaa waxaan ku dhufanaa right click kadib waxaanu leenahay edit top 200 rows waxaad ii qortaa 200 ee row ee horeeyaan doonayaan wax ku qoro aad ku dhufanaysaa. sidan markaad ugu dhufato halkan ay kugu soo baxaya table-keeni columns-kii ka koobnaa halkan waxaan ku dhignaa number 1 halkaas oo kale waxaad ka dhigtaa bilmatalan capitalka hamsi capitalka small ka soo wadan hamsi Hussein baynu ka dhignay genderkiisu waa male telephone numberkiisu waa 063 data aynu ka dhigno. sidan wax wada ku gelin karnaa table-keeni oo imika column-ka koobaad wax way ku jiraan haddaynu markaas ka xidhno close nidhaahno wana data-dii way ku jirtaa oo macnihii table-keeni wax way ku save garaysan yihiin. sidee baynu ku ogaan karnaa halkan kuuriga ayaynu tegaynaa waxaynu qoraynaa erayga select waxaynu qoraynaa star from oo dhiganta select all from hargeysa baynu leenahay kadib highlight baynu leenahay execute baynu leenahay. imika oo kan intaynu soo gelinay hamsi Hussein oo meel genderkiisa isaasan ku soo gelin. haddaba aynu isku dayno in aynu query ku gelino data table-keena hargeysa la dhaho waxaynu qoraynaa erayga insert into baynu leenahay hargeysa kaas oo aynu ku qorino value-yada aynu gelin doono laba bracket baynu furaynaa dhexdooda ayaynu ku qornaa maadaama ID-gu number 1 si jiro 2 baynu ku qoranaa halkan laba single quotation baynu furaynaa halkan magaca doonayna save gareynaan ku qoranaa waxaan qoranaa bilmatalan Abdullahi hakad baynu leenahay last name-kiisuna Abdullahi Abdi
hakad genderkiisu waa mail hakad baan leenahay telephone numberkiisuna waxa weeyaan sidaas estimate ugu dhawaad adigu ani telephone number uma uga jeednaa sidaas aynu qornay haddaba in highlight nidhaahno kadibna aynu ku taabano buttonkeena F5 one row affected buu ku leeyahay macni hal row ayaa data la geliyay saytay si aynu ku ogaanaa xagga sare inteena waxaan leenahay select all from Hargeysa bal wax ku jiro dhan soo qaad oo kan marka Cabdillaahi Cabdi oo mail ah wala markiisna yahay haddaba sidee aynu ashirkana bilowgiisa ku soo sheegnay bal habkii kalena aynu ku eegno inagu columnska qaar ka boodina waxaanu leenahay insert into Hargeysa kadib halkan aynu doonaynaa kolomada aynu doonayno inaan sii gelin imika kale waxaan doonaynaa in wax la geliyo ID-ga hakad name-ka koowaad oo first name ah hakad iyo telefoonka kaliya taga saddexda kolom oo qurax ayaan doonaynaa wax ka shaqeynaa la inta kale last name-ka iyo gender-ku ay manal soo baxaan bay doonaynaa kadib waxaan leenahay values halkan tagana waxaan ku qoraynaa ID-giisu waa noqda lambar 3 hakad baan leenahay magaciisuna waxa aynu noqdaa marka kaba soo qaad waxaan ku qoraynaa magaca dumar oo cibaado oo kale hakad cibaado telefoonkeeduna waa inuu noqdaa baynu leenahay 1 2 3 4 bilmeetran soo kala tusaale sidana table-keena wax weyn ku gelin karaynaa inaga oo sheegnay specific columns column gaar ah oo koos wax leeyno gelin doono ku karana nal lagu soo qori doono kadib highlight baynu leenahay kadib waxaan ku dhufanaa keyboard-keena buttonka F5 si uu inoogu execute karayo inoogu execute karayo waxaan soo saaray one row affected macnaheedu hal row ayaa data la geliyay buu leeyahay haddaba sidee baynu ku ogaanaa in saddexdan column ee aynu meesha ku qoranay data-dii inoo gashay iyo in kale xagga sare intaana select all from-ka ayaan highlight leenahay kadibna buttonkeena F5 baynu riixaynaa sidaad halkan ku aragtaan ID-gii waxa la inooga dhigay number 3 oo kan qoranay magaciina cibaado labadan waxaana looga dhigay sababta halkan specific columns ayaynu ku sheeganay haddaba column-yadeenan nalka ah iyagana data-da asharadan soo socdeen ku baran doonaa sida aynu u buuxinayno inagu aan dib u qori doonin laakiinse ku update garan doonaa haddaba ashirkeenan insert isla mar ahaantaana simple-ka ahaa halkaas ha inoogu joogo sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh